kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkani waa channelka dabagalka wararka waa 10 bisha 7 2019 wararkan idinayna kuwooda ugu waaweyn waxa kamid ah rag loo heystay weerarkii hotel Naasa Hablood oo goordhow lagu fuliyay xukun toogasho ah faafayna ka soo baxaya gabar 9 sano jir ah oo lagu kufsaday deegaan ka tirsan Shabeellaha Dhexe maxaa looga hadlayaa kulanka xildhibaanada golaha shacabka ay maanta ku leeyihiin magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare Khayre oo munaasabad aan caadi ahayn loogu sameeyay magaalada Galkacyo sirdoonka Kenya oo ogaaday weerarada al-shabaab ay qorsheenayaan inay ka fuliyaan magaalada Nairobi iyo digniino culus oo laga soo saaray Somaliland oo sheegtay inuu ku soo wajahan yahay anyax fara badan oo kaga yimid dalka Yemen iyo madaxweyne Axmed Madoobe oo soo bandhigay arin halis ku ah deegaanada Jubbaland intii hore saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door koran warka channelka dabagalka wararka hadii aad ku cusub tahay ku soo biro subscribe sar kana mid noqo saaxiibada joogto oo hela 24 saac wararka halkan aan ku baahayno kuma adsanid inaad nagu soo birtay haatan warkiyo fidsan rag loo heystay weerarkii hotel Naasa Hablood ayaa toogasho lagu fuliyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka xukun dil ku fulisay 3 nin oo loo heystay weerarkii lagu qaaday hotelka Naasa Hablood labo ee magaalada Muqdisho sanadkii 2017 3 nin ee saaka maxkamadda xukunka dilka ay ku fulisay ayaa kala ah Farxaan Maxamed Samatar Cabdinaasir Dhaqane iyo Abshir Maxamed Xaaji raggan ayaa lagu eedeeyay in ay fuliyeen weerarkii hotel Naasa Hablood laba lagu qaaday 28 Oktoobar sanadkii 2017 xilligaas ay ku dhinteen dad ka badan 20 ruux maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa hore dil ugu xukuntay ragga saaka la toogtay ee lagu helay inay ka tirsanaayeen al-shabaab taariikhdu markay ahayd 22 bishii shanaad 2018 waxaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal Farxaan Maxamed Samantar 21 jir ah ina Safiye Maxamed ku dhashay Galguduud Cabdinaasir Dhaqane Xasan 19 jir ah ina Xabiibo Maxamuud ku dhashay Gedo Abshir Maxamed Xaaji Buule 21 jir ah ina Xabiibo Maxamed ku dhashay Saakow kuwaas oo xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiyada kala ah kamid noqosho urur hubaysan oo lid ku awoodaha qaran dumis iyo in ay kamid ahaayeen koox weerar argagixiso ku qaaday hotel Naasa Hablood laba taariikhdu markay ahayd 28 bishii 10 2017 weerarkaas oo sababay khasaare naf iyo maal ah waxaana ku geeriyooday weerarka inta la hubiyay 18 ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen 47 ruux oo kale taariikhdu markay 30 bishii shanaad 2018 waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii dadkii ku geeriyooday weerarkii Naasa Hablood laba taariikhdu markay 28 bishii 10 2017 maanta oo ay taariikhdu tahay 10 bishii 7 2019 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ah ee maxkamadda ciidamada qalabka sida وبالله التوفيق دولة الصومالية ayaa xukunkan fulisay muddo dheer kadib iyadoo dhowr jeer dhaleecin kala kulantay hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee diidan fulinta xukunada dilka ah waxa fulinta xukunkan uu ku soo beegmaya toddobaad kadib markii ururka al-shabaab ay toogasho ku fuliyeen ilaa 17 ruux ay ku eedeeyeen inay ka mid ahaayeen ciidamada dawladda federaalka dhanka kalena faafayna ayaa ka soo baxaya gabar 9 sano jir ah oo lagu kufsaday deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxa soo baxaya faafayna ku aadan gabar 9 sano jir ah oo mid ka mid ah ciidamada militariga ku kufsaday degmada Raagaceel ee gobolka Shabeellaha Dhexe gabadhan 9 sano jirka ah ayaa la sheegay in askariga uu afduubtay xilli ay ka timid dugsi quraan oo wax ku baranaysay kadibna uu faraxumeeyay isagoo waliba u geystay jirdil wararka ayaa sheegaya in askariga falkan ka dambeeyay uu baxsaday waxaana ay sheegeen saraakiisha ka tirsan maamulka degmada Raagaceel in ay ku raad joogaan gabadha falkan kufsiga loo geystay ayaa la geeyay isbitaal ku yaal magaalada Muqdisho si halkaas loogu daweeyo dadka ku nool degmada Raagaceel ayaa aad uga naxay falkan foosho xun ee askari ka tirsan ciidamada ammaanka uu kula kacay gabadhan yar waalidiinta gabadha la kufsaday ayaa dalbaday in cadaaladda la horkeeno askariga ka dambeeyay falkaasi
dhanka kalena xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in kulankooda caadiga ah ay ku yeeshaan xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. ajendaha kulanka maanta ayaa ah aqrinta labaad ee hidis sharciyeedka duulista hawada ee rayidka iyo aqrinta saddexaad ee xisaab xirka sanadka 2017. xildhibaanada ayaa loo diray fariimo muujinaya kulanka golaha shacabka ee maanta, iyadoo lagu amray in aysan ka maqnaan karin kulanka. ammaanka xarunta golaha shacabka ayaa si weyn loo adkeeyay saaka, iyadoo la dhigay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya. sidoo kalena waxaa la xiray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho. geesta kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa magaalada Gaalkacyo uga qayb galay munaasabad soo dhaweyn ah oo maamulada gobolka Mudug iyo degmada Gaalkacyo ay u sameeyeen. duqa magaalada Gaalkacyo iyo gudoomiyaha gobolka Mudug oo munaasabada soo dhaweynta ka hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin booqashada uu ra-iisul wasaaraha ku yimid magaalada Gaalkacyo iyo dadaaladiisa dhismaha Galmudug dhameystiran, waxaana ay ka codsadeen in dowladda ay wax ka qabato baahiyaha bulsho ee ka jira degmada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug. waxgarad haween iyo dhalinyaro ka hadlay munaasabada ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uga mahad celiyay booqashadiisa degmada Gaalkacyo, waxaanay u rajeeyeen in guul uu ka gaaro socdaalkiisa uu dhidabada ugu taagayo Galmudug loo dhan yahay. ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ka mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyay ayaa ballan qaaday in baahiyaha bulsho ee ka jira gobolka ay dowladdu ka jawaabayso isla markaana ay wax ka qaban doonto. waxaa kaloo nasiib u yeeshay maantay inaan ka qayb galo shir ay isugu yimaadeen dhammaan siyaasiyiinta, waxgaradka, odayaasha, haweenka oo dad badan ay ka soo qayb galeen. aadna aan ugu lafa gurnay xaaladda guud ee dalka, tabashooyinka jira, sidoo kale baahiyaha gaarka ah ee magaaladan iyo degmooyinka kale iyo tuulooyinka kale ay ka turjumayeen siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanku. waxaa laga yaabaa inaad isleedihiin waa sheegateen baahiyadiina maxaa laga qaban karaa. waxaan rabaa inaan idiin sheego ugu yaraan sidaad ii soo dhaweyseen, sida aan isula falgalnay, sida aan u munaaqashoonnay, waxay i fahamsiisay baahida aad qabtiin. waxaa kaloo i fahamsiisay dareenkiina, waxaa kaloo i fahamsiisay awoodda meeshaan taal inta ay leeg tahay. waxaa kaloon ogahay anigoon imaanna si diiran inaad ii soo dhaweyseen, haddoo aan imidna si ka sii diiran inaad ii soo dhaweyseen. inkastoo aan ra-iisul wasaarihiinna ahay ra-iisul wasaarihii Soomaaliyeed ahay, haddana waxaan idiin sheegayaa saaxiib ayaad samaysateen hadda la yidhaahdo ra-iisul wasaare khayre, waana ku tashanaysan galabta. waxaa kaloo nasiib u helay inaan ku soo orodno garoonka haliyey cabdullaahi ciise. waa dhuunteen cabdiqabdiid iyo fiqi, sababtoo ah waxaa la rabay in 5 kilomitr lasoo ordo. tuulax iyo waa dadaaleen iyo cagaweyne, laakiin dhallinyaradii meesha joogtay waa kala hadlay arrimaha garoonka. shalayna waan ka hadlay, waa ka ballannay, waa fulinaynaa ballantaas iyada ah. ma aha bil ama 2 isbuuca soo socdaan fulinaynaa iyo sida ugu dhaqsaa badan. waxaa kaloo ay dhalinyaradu iga codsadeen in jidadka laga shaqaynayo mid ka mida uu wiilku halkan Aydiid oo nin aad aftahan u ah oo markuu wax walba igu dayay iga dhamaystay kadib yiri saaxiibaan nahay. waa ku maadsantahay saaxiibtinimada, laakiin baahiyahaasna waxbaan ka qaban doonaa. waxaan codsaday marka in aan kala hormarino oo warqadaad ku soo qortaan sida ay u kala horeeyaan. waxaan rabaa marka ma raba inaan halkan waxaanan fulin karin ka ballan qaado, laakiin waxaan idin ballan qaadayaa wax walba aan awoodo waxbaan idinkala qabanayaa. waxaana ugu horeeyay wasiirada aan magacaabateen waa la idiin soo dirayaa, waa idiin imaanayaan, waa la xisaabtamaysaan, waa la fariisanaysaan. ugu dambeyntii jidkii shalayta aan soo maray oo aan hadda heshiis ku galnay in la dhiso. geesta kalena sirdoonka dalka Kenya ayaa sheegay in al-shabaab ay qorsheynayaan weerar ay ka geystaan gudaha dalka Kenya.
weerarka ayaa la sheegayaa in al-shabaab ay qaadayaan bilaha Juulaay iyo Agoosto midkood sida ay sheegeen sirdoonka Kenya oo sheegay inay heleen xog dhinaca ammaanka ah. waxay xogtooda ku sheegeen in al-shabaab ay beegsanayaan goobaha dalxiiska ay ku badan yihiin dadka ajaanibta ah ee u dalxiis taga dalka Kenya. sidoo kale sirdoonka ayaa sheegay in al-shabaab ay gudaha Kenya la galeen walxaha qarxa oo loo adeegsanayo weerarada qorsheysan. dowladda Kenya ayaa sidan oo kale dhowr jeer uga digtay weeraro ay al-shabaab ka geystaan dalkeeda, waxaana sidoo kale ay sheegtay in ay ka hortagtay kuwa kale. al-shabaab ayaa 4 weerar oo waaweyn ka fulisay dalka Kenya tan iyo sanadkii 2011 markaasoo ciidamada Kenya ay sharci darro ku soo galeen gudaha Soomaaliya. weeraradaasi waxay kala ahaayeen weerarkii Westgate ee 2013 oo sababay dhimashada 67 ruux, weerarkii Embakatoni ee 2014 oo sababay dhimashada 64 ruux, weerarkii jaamacadda Garissa ee 2015 oo sababay 148 ruux dhimashadooda, iyo weerarkii Dusad D2 ee 2019 oo sababay dhimashada 21 qof sida ay sheegtay dowladda Kenya. dhanka kalena Soomaaliland ayaa sheegtay inuu ku soo wajahan yahay ayax fara badan oo kaga yimid dalka Yemen. maamulka Soomaaliland ayaa ka qayl dhaamiyay ayax ay sheegeen inuu ku soo wajahan yahay xeebaha dalka Yemen. Mukhtaar Cabdiraxmaan Cilmi oo ah madaxa xafiiska ka hortagga ayaxa iyo cayayaanada xuduudda isaga gudba ee wasaaradda beeraha ee Soomaaliland ayaa ka dalbaday in laga gacan siiyo sidii looga hortagi lahaa si uusan ugu faafin deegaanka. waxa uu sheegay in mar ayax uu ku yaacay xeebaha Soomaaliland balse dabaysha dib ay uga celisay. Mukhtaar ayaa ayaxa ku tilmaamay musiibo dabiici ah oo u baahan in la isaga kaashado si uusan u nabaad guurin beeraha iyo dhirta. qof waliba oo gacan ka geysan karta ay hay'adaha samafalka waxa uu ka dalbaday inay u istaagaan sidii loo heli lahaa qalabka lagu buufiyo ayaxa si uusan deegaanka ugu faafin. ka maamul ahaan waxa uu tilmaamay inaysan awoodin diyaaradaha casriga ee loo adeegsado buufinta cayayaanka. ugu dambeynna madaxweyne Axmed Madoobe ayaa soo bandhigay arrin halis ku ah deegaanada Jubbaland. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin xaalufinta dhirta iyada oo inta badan deegaanada gobolada Jubbooyinka laga jaro dhirta si dhuxul looga dhisto. waxa uu sheegay in dhibaatada ugu badan ee ka jirta deegaanada Jubbaland ay qayb ka tahay xaalufinta dhirta, isla markaana dadka dhirta jaraya loo baahan yahay in loola dagaalamo sida al-shabaab oo kale. iyaga magaalada dul saaran oo ilaa halkan iyo garoonka Kismaayo inta u dhaxaysa looda isdaba socoto waa culays deegaanka ku soo kordhay. xaaluf badan baa deegaanka ku dhacay oo maxaa sabab u ahaa waxa ugu badan ee deegaankan xaalufiyey ee wixii lagu ogaa wax ka bedelay waxa dhirta la jarayo iyo dhuxusha. dhibaatada ugu badan dhir baa la jarayay, dhuxul baa la gooynayay, waa la xaalufiyey. xataa roobkii wuu yaraaday sababtoo ah roobku haddii dhulkani dhul duura buu ahaa ood garanaysaan maroodiga iyo gisiga iyo cidoodku siduu uga buuxay, laakiin maanta waad aragtaa waxa ku dhacay. waxaan rabnaa inaan la wada dagaalanno kulligeen sida kuwa shabaabka aan ula dagaalamayno in geedaha jaristoodana aan dagaal u galo oo aan iska hortaagno oo aan u aragno qofka geedka goynayo inuu qof Soomaaliyeed goynayo risiqiisa iyo dhuuntiisa uu jarayo. wax allaaliya waxay kordhinaysaa ma laha, dhibaatayna og tahay. environmentigii iyo bay'adii baad arkaysaan culayskii dhibaatada gaadhay. taa markaa waxaan rabnaa inaan haddii ilaahay idhaahdo tallaabooyin cadcad aan ka qaadno insha allah biidni ilbaari oo hawshaasi ay noqoto mid wax laga qabto. February soo dhowaada, socodkaan idinku badinaynaa. waan isku dayayaa inaan guddoomiyaha tuulada uu yimaado Kismaayo wixii fariina markaa ee ceelasha iyo wixii ka suurtagalay waxay noqoto isagaa fariinta idiin keeni doona haddii ilaahay isagaa idiin keeni doona. aad baad u mahadsantihiin waqtigoo yar daraadii, aad baan idinku mahadcelinaynaa, waan dadaalaynaa. kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo ka hadlayay dhibaatooyinka ka jira deegaanada Jubbaland. guud ahaan war wixii dalii daafaca caalamka naga soo gaaray oo aad ka daawaneyseen channelka dabagalka wararka waa naga intaa. haddii aad ku cusub tahay channelka kusoo biro subscribe saar kana mid noqo saaxiibada joogto oo hela 24 saac wararka halkan aan ku baahayno. kuma aadsanid inaad nagu soo birtay.